gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicdi Injineer Faysal Cali Xuseen oo ah musharaxa xisbigaasi u tartamaya doorashada sanadkan ayaa maanta booqasho rasmiya ku gala-bixiyey dhakhtarka weyn ee Hargeysa isagoo booqday qaybo ka mid ah qaybaha uu ka kooban yahay dhakhtarku ay ka mid tahay qaybta bukaan socodka halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen dhakhaatiirta dadka u adeegayay oo meesha ku xaadirka ahaa wakhtigaasi injineerka ayaa u soo jeediyey dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee ku sugnaa xarunta dhakhtarka Hargeysa in ay dadka u turaan islamarkaana si fiican ugu adeegaan isagoo aada ugu hambaliyey shaqada fiican ee dadka u hayaan islamarkaana ku bogaadiyey inay sii bilaabaan shaqada fiican ee ay hayaan iyadoo aad moodo daryahan dambe dhakhtarka weyn ee Hargeysa inuu kor u soo kacayo oo dadku aad iyo aad sidii hore si ka badan ay dadku outpatientka iyo inpatientkaba ay ugu soo doontaan adeega caafimaadka oo aad moodo inuu wakhtigiisii ugu fiicnaa ku jira dhakhtarka Hargeysa haddana inkastoo aan weli la gaadhin halkii loo baahnaa ee dadku loogu adeegi lahaa haddana muddooyinka dambe aad moodo dhakhtarku inuu sidiisii hore soo dhaamayo ayaa uu injineerku booqashadan gaaban oo uu siduu sheegay ahayd inuu ku dardargeliyo shaqada ka socota dhakhtarka islamarkaana uu ku bogaadiyo shaqaalaha islamarkaana uu sidoo kale booqdo dadka dhakhtarka jiifa la daweynayo booqashada gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa kusoo beegantay wakhti gelin hore ah oo dadku ay ka buuxaan dhakhtarka islamarkaana dad fara badan ay ku sugnaayeen injineerka oo aan ka hadal meesha laakiinse dhakhaatiirta iyo dadka adeega caafimaadka meeshan ka haya dhakhtarka ka haya si fiican ula dardaarmay ayaa akharkii ku soo dhameystay si jawi degan booqashadiisa